Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show. Waa 5 Maarso 2026 qodobada qaybtan aan idinkuga hayno waxaa kamid ah Iran oo xarunta kooxda Kurdiyiinta ee Ciraaq weerar ku qaaday maanta oo Khamiis ah. Dhinaca kale dowladda Iran ayaa beenisay inay weerartay Turkiga waxa ayna xaqiijisay inay ixtiraam weyn u hayso madaxweynaha Turkiga. gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku dhacay Azerbaijan qaraxyo kale ayaa laga soo sheegay inay ku dhaceen magaalada Manama ee dalka Bahrain sida uu sheegay wariye goobjoogo ah oo halkaas ku sugan. qodobo kale ayaa raaci doona. aynu ku bilownay Itoobiya oo hirgelinaysa nidaam tijaabo booliis casri ah oo qaaradda ku cusub. shaashadaha kombiyuutarada ayaa iftiimiya gudaha qolal yaryar oo kala qaybsan oo ku yaala saldhigga booliiska oo cusub oo Itoobiya dhistay. ma jirto buuq ama qalalaase, ma jirto miis hore oo adeeg bixiye fadhiyo ama ku yaala afaafka hore, ma jirto kuraas ay ku sugayaan dad rayid ah oo walwalsan, mana jirto askar kala horaya dad adeeg bixinta u baahan. tani waa mashruuc tijaabo ah oo loo yaqaano saldhigga booliiska casriga ama saldhigga booliis oo aan askar joogto ah lahayn, kaas oo ku yaala degmada Boole ee caasimadda Addis Ababa. waa tallaabadii ugu dambeysay ee Itoobiya ku doonayso inay kula jaan qaado kacaanka dhijitaalka ah. shaashada weyn ee derbiga ku dhaggan ayaa soo bandhigtay fariimo soo dhaweyn ah iyo sawirada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Iran ayaa Khamiista maanta ku dhawaaqday inay bartilmaameedsatay xarunta Kurdiga ee Kurdistaan ee Ciraaq sida lagu sheegay warbaahinta rasmiga ah ee Iran kadib duqeymo cirka ah oo lagu qaaday deegaanka Kurdiga ee Iran iyo Ciraaq. wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Iran IRNA ayaa soo xigatay war lagu daabacay Telegram iyada oo lagu sheegay waxaan bartilmaameedsanay xarumaha kooxaha Kurdiga ee ka soo horjeeda kacaanka ee Kurdistaan Ciraaq annagoo adeegsanayno 3 gantaal ayay warkooda ku sheegeen. ciidamada Iran ayaa shaaca ka qaaday inay ixtiraam weyn u hayaan madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan isla markaana ay beeninayaan gantaalo laga soo tuuray dhulkooda sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay warbaahinta dowladda Iran Khamiista maanta. war-saxaafadeedka Iran ayaa ku yimid jawaab u ahaanshaha war-saxaafadeedka gaashaandhigga Turkiga Arbacadii, taas oo lagu sheegay in gantaal balaastig ah laga soo tuuray Iran kuna wajahna hawada Turkiga kadib markii ay ka gudubtay Suuriya iyo Ciraaq ka hor inta aan la burburin nidaamka difaaca hawada iyo gantaalada ee NATO ee badweynta Bariga Dhexe. gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku dhacay Azerbaijan agagaarka garoonka diyaaradaha ee Nakhchivan ee Azerbaijan. ilo ku dhow dowladda Azerbaijan ayaa sheegay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano oo ka yimid jihada Iran ay ku dhaceen Khamiista maanta agagaarka garoonka diyaaradaha oo ku yaala gobolka Nakhchivan ee Azerbaijan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Nakhchivan waxa uu qiyaastii u jiraa 10 kiiloomitir dalka Iran waxa uuna ku yaala gobolka Nakhchivan ee Azerbaijan oo juqraafi ahaan ka go'an dalka intiisa kale. qaraxyo kale ayaa laga soo sheegay inay ka dhaceen magaalada Manama ee dalka Bahrain sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo ku sugan magaalada. qaraxyo xoogan ayaa laga soo sheegayaa magaalada caasimadda ee Doha dalka Qatar subaxnimadii maanta oo Khamiis ah, iyadoo u muuqata in Iran ay sii wado weeraradeeda ka dhanka ah dalalka Khaliijka si ay uga aargudato weerarada cirka ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen. warbixintu waxa ay sheegtay in qaraxyadan ay ka yimaadeen mawjado weeraro ah oo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Iran ay ku bartilmaameedsanayso danaha Mareykanka iyo xulafadiisa ee gobolka. Wargeyska New York Post ayaa ku warramay maamulka Trump ayaa la xiriiray hogaamiyayaasha Kurdiyiinta ee Iran iyo Ciraaq isagoo ka codsaday taageero ku aadan dadaalada lagu wiiqayo dowladda Iran. warbixinta waxaa lagu sheegay in Trump uu ballan qaaday ilaalinta hawada uu Mareykanka bixiyo iyo taageero kale haddii kooxaha Kurdiyiinta ee Iran ay isku dayaan inay weeraraan qaybo ka mid ah galbeedka Iran. saraakiil Mareykan ah ayaa sidoo kale baaraya suurtagalnimada isbahaysiyo lala sameeyo mucaaradka gudaha Iran xilli uu sare maray dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa oo garab ah.
iyo Iran, isla markaana waxa ay warbaahintu sheegtay Mareykanka in uu ka fiirsanayo sidii uu u kordhin lahaa ku lug lahaanshaha dagaalka militariga. Balse arrinta ugu xiisaha badan ee daaha laga qaaday waa in uu Trump u sheegay hogaamiyayaasha Kurdiyiinta Ciraaq iyo Iiraan waa inaad doorataan Mareykanka iyo Israa'iil ama Iiraan, ma jirto wax intaa u dhexeeya, ayuu leeyahay madaxweyne Trump. Dhinaca kale, arrin la yaab leh ayaa ka soo baxday dalka Suudaan. Suudaan ayaa waxa ay sameysay qanuud laga sameynayo masaajidada kadib markii ay habaar la dul istaageen dowladda Imaaraadka Carabta oo ay sheegeen inay dhib xoogan ku hayso intii uu socday dagaalka sokeeye ee ka socda dalkaas Suudaan, sida ay sheegtay warbaahinta dalka Suudaan.